قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجود هجنوجو هادان هوشيتنا هجود وزير كمالية مدن سعد علي الشرع دكتور سعد علي الشرع وزير كحنانة حولها حسن محمد علي حسن قافاردي قدوميها هايد شغالها مدن فرحان هذا هيبة أقاسمها جودة محد كشغالها الدولة ده قولت سليمان هجوك مدحضة كله أن إسدوياشة شغالها صحافة دمان مرت الشرف تكسو غيب كشيء حفلة marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladda aynu maanta halkan u joognaa waxa weeye xafladaynu ku daafuri doono xariga kaga jari doono xafiiska hay'adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer iyo xarunta maxadka shaqaalaha dawladda ee gobolada bariga waxaynu sidoo kale inta raacsiisan doonaa xafladda xiritaanka tababarka shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer shantii maalmood ee ugu dambeysay ama wiigi ugu dambeeyay uga socday xarunta cusub ee aynu maanta xariga ka jari doonay maxadka shaqaalaha dawladda waxaynu halkan ku qabanay tababarkii ugu horeeyay ee maxadka shaqaalaha dawladdu daadihinayo ee laga fuliyo gobolka Togdheer tababarkaas oo loogu talagalay isuduwayaasha iyo madaxda kale ee maamulka ugu sareeya wasaaradaha iyo hay'adda dawladda waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo laba maalmood ka dhiman tahay shantii bilood intii uu joogay hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha ka ahaa dardarta cusub ee uu shaqada geliyay iyo inuu xafiis inoo daafuray idinka oo arka inay tahay bishii 8aad oo laga daba tagay oo aanu ahayn ku dalagalkii sanadkii hore laakiin la soo dedejiyay furitaanka markii la arkay baahida iyo xafiisyada gobolada laga furayba waxa 27 ka qof waxa ku dalagalkii warqadii bilowgii aan ku soo diray aad soo saxeexday 27 kiiba si buuxda bay uga qayb qaateen una dhameystirteen 27 shahaadana in maanta halka ku guddoonsiinayna haddaan ka yara haddo farxad weyn baa noo tahay مشروع يهيدهان دولدهان بل انتبه مشروع دواوينta shaqaalaha waxa kamid ah inuu xoojiyo hay'adaha dawladda institutionka dawladda inuu xoojiyo gaar ahaan inuu xoojiyo hay'adaha shaqaalaha oo ah madaxii ama hay'adii ka mas'uulka ahayd dawaaweynta shaqaalaha mashruucan in badan wuxuu ka soo shaqeynayay sidii uu dhisi lahaa hay'adaha shaqaalaha mashruuc wuxuu ka soo shaqeeyay inuu dhiso hay'adda shaqaalaha inuu dhiso capacity-geeda si ay u hanato shaqaalaha dawladda haday xogtooda noqonayso maamulkooda haday noqonayso iyo haday noqonayso tababaradooda iyo sidoo si hay'adda shaqaaluhu ay heer gobol ama loo daajiyo mashruuc kala shaqeynayay dawaaweynta shaqaalaha in la daajiyo xafiisyada hay'adda shaqaalaha marka xafiiskan faa'iido weyn buu yahay hay'adda shaqaalaha si loogu soo dhaweeyo dadweynaha aynu u qabto ilaa 3 shay ah ugu horreysay muhiimadda xafiiskan wuxuu naga caawin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo inuu helo xogta shaqaalaha iyo sida loo qaadanayo oo baahi weyn dadkan u qabaan baahi weyn baa taa loo qabaa in xogtooda iyo shaqaalaha qaybinta maaragtay planning marka shaqaalaha la qaybinayo qorshahooda halkan ay noqonaysaa halka laga bilaabi doono haddii Ilaahay ka dhigo wuxuu kaloo ka caawin doonaa maareyntooda iyo controlkooda in la maamulo shaqaalihii tababarada nimanka maxadka oo sheegano sida loo tababari lahaa heer gobol ma xaruntu in badan la sugo controlkooda ilaalintoodii waxa kaloo xafiiska haddii Ilaahay ka rajeeyo inuu ka shaqeeyo sidii loogu diyaarin lahaa shaqaalaha inuu ka baxo meesha marka waqtigiisu dhamaado ama uu gaboobo exit koodina uu ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo ama beeshakooda ha noqoto marka fursad weyn oo wanaagsan weey si laakiin saddexda shay uu xafiisku u qabto waa inuu shaqaale adag helaa oo capacity leh oo aqoonti leh waana sababta keentay maxadka in la dhinac wado oo shaqaalihii hay'adda shaqaalaha la dhiso waa inuu helaa agab ku filan mashruucu wuxuu ka caawiyay agab ku filan waa loo dhigay gudoomiyaha iyo waftigu way furi doonaan qalabkii waa loo dhigay biometrigi xogta halkan iyo hargeysa waa la isku xidhi doonaa halkan qofka lagu diiwaan gelinayaa xaggaana kaarkii uu ka qaadanayaa
marka waxaasoo dhan waxay keenaysaa inuu awood uu hanan karayo xafiiskii gobolka heer gobol si uu waajibaadkii u qabto kaliya waxaa hadhaysa un xafiiskii coordination in wada shaqayn yeeshaan haddii ilaah ka dhigo marka fursad weyn bay noo tahay haddii ilaah ka dhigo waan soo dhaweynaynaa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala oo fududeeyey mashruucan dib u habaynta inuu dhaqaaqo waxaan kaloo mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha intii yareedu nala joogay wax weyn buu noola qabtay hadday noqon lahayd ansixintan 16 siyaasadood waxaan u mahadcelinayaa wasiirada aan la shaqeyno gaar ahaan Saacad Cali Sheekh wasiirka maaliyadda oo si dhow u mashruuca ula shaqeeya marka aad baan idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullahi ugu horeyn waxaan ka yara warbixinayaa waxaanu ka faa'iideysanay tababarkan loo qabtay in doora ayaan anigu waxaan ahay kuwa ugu service-ka dheer leh gobolka halka kan aan ka shaqeynayno wuu naga dhinaa ama maba arag iskuuladii jaamacadii dabeelgeli waxyaabihii aan tababaro badan oo soo qabtay kan maanta aan qaatay mid ka faa'iido badan waayo waxyaabo cusub oo aanan horu aqoon baan ka bartay waxaa ka mid a kow qodob gulaan ka soo qaadanayaaye maanu aqoon qaabka had iyo jeeraale maxaa maamul dejinoo naloo sameeyo mashaariicda ha naloo soo dejiyo qaabka loo birbeergareeyo mashaariicda maanu aqoon laakiin kan baanu ka baranay sida loo birbeergareeyo mashaariicda codsigooda kelmadunbaa halkudhig aan ka soo dhigayaa no problem no project wax la yaala baanu ka baranay macallinka madaxda heer qaran ee wasiirada ah wasiirka maaliyadda wasiirka xanaanada xoolaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha gobolka agaasimaha maxadka shaqaalaha xildhibaanka isuduwayaasha iyo ka soo qaybgalayaasha kale xafladda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan runtii waa maanta ay bishu tahay 27 oo waa maalin aad u qiimo badan xaflado dhowr ah oo isa saaran oo runtii odhan karo waa dhowr xafladood oo isa saaran oo aynu maanta halkan ku daafurayno oo taariikhna u ah reer Togdheer aynu maanta halkan ku daafurno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa hadday noqoto maxadkii tababarka shaqaalaha oo muddaba haddaynu nahay reer Togdheer amaba gobolada bari oo dhan aynu aad ugu oomanayn aadna u raadinaynay maanta baa ilaahay subxaanahu wa tacaala idankeedii gartay in lagu daafuro gobolka Togdheer maxadka muddo runtii hawshiisa socotay waxaan ugu horeyn uga mahad celinaynaa haddaan reer Togdheer nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii maalintii uu safarkeena ugu yimi sidii uu isduwihii iga horeeyayba sheegay codsiyadii aanu ka codsanay uu ka mid ahaa in shaqaalaha dawladda ee gobolada bari ay aad ugu baahan yihiin tababaro iyo in aqoontooda kor loo qaado maadaama dawladnimadu ay tahay in adeeg dadka loo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore ilaahay baa mahad iska leh maanta aynu sugu nimid munaasabadan qaaliga ah aynu in badan ka wada shaqeynaynay inaynu tan oo kale helo munaasabadan saddexda ujeedada leh ujeedada koowaad waxa weeyaan in xariga laga jaro xafiiska hay'adda shaqaalaha waxa ku xigtay in isna xariga laga jaro xarunta maxadka shaqaalaha dawladda ee gobolada bariga halka gobolada bariga markaan leeyahay waxa halkan tababarada lagu bixin doonaa ka faa'iideysan doona shaqaalaha dawladda hoose iyo dawladaha dhexe ee jooga gobolada Sool Sanaag iyo Togdheer iyo soo xidhidii tababarkii halkan inoogu dhamaaday runtii tababarkii ugu horeeyay maxadku bixiyo ma ahayn laakiin tababarkii ugu horeeyay xarunta lagu bixiyo buu noqonayaa in dhow tababaraydu kuma naaniman laakiin hadda wixii ka dambeeya waxay noqon doonaan tababaro isdaba joog hadii la hayraado marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ballanqaadkii uu ku ballan qaaday in shaqaalaha dawladda la tayeeyo daryeelkoodana la ilaaliyo kaga dhabeeyay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda oo isna fududeeyay nala garab taagan mar walba waxa alla iyo wixii aanu u baahano ee caawimo ah si loo qaado kor loogu qaado tayada shaqaalaha dawladda mar saddexaadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda maamulka gobolka iyo kuwa degmada waxaan doonayaa halkan inaan ku xuso
in maxadka shaqaalaha dawladda in halkan la keeno hawsha hawl hadda bilaabatay maaha ilaa 2013 baanu wadnay waxaa inta aad ila shaqeynayay si dhow maayarka magaalada maayar maxamed muraad oo isna amaantiisa kula maanta halkan inaga maqan waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo isna intii hawsha ay bilaabantay dardar geliyay kana shaqeeyay door muhiimana ka ciyaaray in xaruntan ay shaqeyso ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo intii yarayda koobneed uu nala joogay 5 bilood isbedel weyn oo la taaban karo ka muujiyay hay'adda shaqaalaha iyo qaabka shaqada aynu qabanayno maanta waxaa halkan la idinku keenay maxadkii shaqaalaha dawladda tababarada qori lama socdaane wax alle iyo wixii la socday ee shaqaaluhu heli jireen oo dhan baa la socda waxaa ka mid ah in imtixaanadii scholarshipada ee shaqaalaha dawladdu ay ka faa'iideysan jireen ee waddanka dibaddiisa loogu bixi jiray isaguna uu la socdo halkan lagu qaban doono waxaa la socda in shaqaalaha dawladda dhexe iyo kuwa dawladaha hoose ay tababaro iyo barnaamijyo aqooneed oo bilaasha ka heli doonaan aqoontooda ka heli doonaan maxadka shaqaalaha dawladda waxaa la socda iminka hortiina waxaa yaallo maanta laydiin qaybiyey siyaasadihii maamulka iyo maareynta shaqaalaha dawladda tababaradii aad ku isticmaali lahaydeen siyaasadaha sababtoo ah buuggaa laydin keenay waa qoraal laakiin wuxuu u baahan yahay in laydinku tababaro sidii aad u isticmaali lahaydeen iyaguna way daba socdaan si degdega baana haddii ilaahay idhaahdo loo bilaabi doono hawsha waxaa daba socda in shaqaalihii kale gobollada bariga oo aan jaanis hore u heli jirin inay tababaro helaan halkan aad ku casuuntaan gobolkan togdheero waa ku soo dhaweysaan si ay uga faa'iideystaan iyaguna tababaradan shaqaalaha dawladda halkan lagu bixin doono ujeedooyinka laga leeyahay waxa weeyaan ugu dambeyn in shacabka cashuur bixiyayaashu ay helaan adeeg hufan oo tayo leh oo aqoon iyo cilmi ku fadhiya halkaynu soconnaa dawladnimo xooggan micnaheedu waxa weeyaan dawlad adeeg fiican siisa shacabkeeda shacabkuna ay ku qanacsan yihiin waxaynu isu soo dhaweyn doonaa xiriirka adeegyada shacabka iyo ay leeyihiin iyo xafiisyada dawladdu haddii la yiraahdo dhawaan waxaa la hoos keenay maxadka shaqaalaha dawladda maxadka tababarada dawladda shaqaalaha dawladaha hoose halkana iyagana tababaradooda lagu qaban doonaa degmooyinka gobollada bariga ee Soomaaliland haddii la yiraahdo insha Allah taala marka waxaan leeyahay waxa weeyaan waa hadaf weyn oo la gaaray waa milestone aynu gaadhnay dhammaanteenba waxay u baahan tahay inaad tababarada ka faa'iideysataan inaad isticmaashaan oo shaqadii ku isticmaashaan iyo inaad adeeg fiican aad shacabkii u gudbisaan aad baan idinku hambalyeynaya sida fiican aad tababarkii ka dhamaaday uga qayb gasheen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta waxaa farxad inoo ah gaar ahaan dadweynaha gobolka Togdheer maamul iyo shicibba inaynu maanta halkan ugu xafladeynayno 27 xubnood oo ka tirsan isuduwayaasha iyo gudoomiyaasha hay'adaha dawladda ee gobolka Togdheer oo uu ugu soo xidhmay tababarkii u horeeyay ee lagu qabto dugsiga tababarka shaqaalaha ee gobolka Togdheer 27 xubnood farxad weyn bay inoo tahay in maanta ay koow tahay in dugsi tababar oo shaqaaluhu leeyihiin oo aynaan meel kale u tagaynin la inoogu keenay gobolkeedii inay shaqaaluhu tababartaan xigmadda ku jirta ama faa'iidada ku jirta waa horaa loo sheegay waayo qofku garoonka inaanu tagin waxa uu ku wanaagsan yahay inuu marka hore sii tababarto markaasay u suurto galaysaa inuu ciyaar wanaagsan soo bandhigo sidoo kale iyadoo runtii aanu halkan ku haysanay wasiir khibradlayaal fara badan oo hay'adaha dawladda maaragtay ka tirsan oo isuduwayaal iyo gudoomiyayaalba leh oo aan runtii ku kalsoonahay shaqada ay u hayeen mujtamaca gobolka Togdheer haddana tababarkani wuxuu sii xoojinayaa awoodooda iyo kartidooda hogaamineed ama gudbineed ama shaqo ee ay u hayeen ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer insha Allah bidnillaahi baari hawshani runtii waxa ay ka dambeysay safarkii kal hore inoogu yimid madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee aan kaga codsanay in maadaama oo distance-ku inagu fog yahay in dugsigii tababarka shaqaalaha baahina aynu qabno in halkan la inooga furo waan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ballantaa
fuliyey oo ballanqaadka uu fuliyey ee ka soo baxday sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa runtii ugu horraysiinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda oo waxa weeyaan dee isaguna sida ay sheegeen howlwadeennada mar walba la bartaagnaa waxa weeyaan wixii ay hawshan ku socon lahayd waxaan sidoo kale halkan uga mahadnaqayaa farxaan aadan haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii aanu hawshan ka wada bilownay meel hoose waqtigii aanu arrintan isla soo qaadnay xafiis hay'adda shaqaaluhu leedahay ama maxadka waxaan leeyahay maxadka tababarku uu ku lahaa gobolka may jirin waanu raadinay ilaahay waa nagu guuleeyey hawshina maanta halkaa ay marayso ayay maraysaa sidoo kale guuleed agaasimaha maaragtay tababarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna hawsha maaragtay qayb muhiim ah ka qaatay marka waxa weeyaan waxaan halkan marka runtii rabaa inaan idin ka iftiimiyo waqtigii madaxweynuhu ka horay inoo yimi safarka ballanqaadyadii uu inoo ballanqaaday aan ka codsanay waxaan u malaynayaa inuu kan yahay intii fusheekii u dambeeyay waana uga mahadnaqaynaa madaxweynaha runtii cid kasta oo hawsha gacan ka geysatayna waan uga mahadnaqaynaa waxaananu halkan ka sheegaynaa oo ka jecelahay maadaama ay maanta nasiib yeelanay xidhitaankii tababarka koobaad inay goobjoog ka noqdaan dhammaan dhinacyadii hawsha ay khusaynaysay wasiirkii maaliyadda oo xaggii kharashka inoo haya oo isaga la'aanteen waxba inoo socdeen muxuu ahaa saraakiishii baanka la shaqeeyay hay'adda maaragtay agaasimihii guud gudoomiyihii hay'adda shaqaalaha in aan maaragtay la sii xoojiyo oo dugsiga la sii xoojiyo si aan u martigelino gobolada bari loogu talagalay inay halkan maaragtay ka qaataan tababarka annagoo aan ognahay inaanu dawlad ahaan iyo shicib ahaanba soo dhaweyn doono cid kasta oo gobolada bari ka socoto shaqaalaha dawladda ah oo halkan tababar ku qaadan doona ilaahay baa mahad leh nabadgelyo naxariis korkiisa ahaata xabiibkeena nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wasiirka horumarinta maaliyadda wasiirka horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga mas'uuliyiinta kale ee halkan joogta dhammaantood barasaabka agaasimaha maxadka tababarka shaqaalaha madaxa mashruuca isu duwayaasha mas'uuliyiinta kale marti sharafta dhammaantiin qof waliba magaciisa iyo martabadiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waa waajib qaran ilaahay baa mahad leh waa waajib qaran xilka iyo mas'uuliyadda saaraysa inaanu u saaciyino oo wax ku soo kordhino shaqada naloo igmado ee naloo xil saaray taasuun bay ka mid tahay ilaahayna inta noo hadhana nagu asturo dhammaantii inta mas'uuliyad haysa min madaxweyne ilaa halka hooseysa waajibaadna wada saaran weeyii marka qaybun bay ka tahay shaqada naloo xil saaray inaanu u fakiro u saaciyino u baadi doono sida ugu qurux badan ee adeeg hufan ay qarankeena iyo shacbigeenu u heli lahayn taana waxa qayb ka in la tayeeyo shaqaalihiisa taasaa keentay inuu xafiisyada gobolada soo furo maxadka tababarka shaqaalaha dawladda ee gobolada barigana aynu burco ka hirgelino waxaan ku oran lahaa hadalkii waa la yiri in laga faa'iideysto aqoonta tababarka ee bilowgeedina tii u horeysay weeye tii ugu dambeysana noqon mayso waynu wadaynaa inta maxadkaasi shaqeynayo dhismaha waxaynu ku koobnay meel waxaynu ku bilownay meel kooban inagoo karaysanina ay meel aynu suurto gelinayno dhismadooda la soo wareegno taana waxa suurto geliyay hiraalkii iyo visionkii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloo tababarada suurto geliyay miisaanad maanaan haysanin inaan sheego weeyo xuso waayo waxaan imaano waqtigan waa waqti miisaanadiiba hore loo ansixiyay ayaan xilka qabtay waxaan isna aad si milgale oo sharaf leh oo qiimo leh uga mahad celinaya wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saacad Ali Sharax oo arrintaas suurto geliyay waxaan leeyahay wax weyn buu ku daray inay noo suurto gasho inuu dhaqaaqo maxadka tababarka shaqaalaha dawladdu ee gobolada bariga waxaan jecelahay insha Allah inta sanadka ka hadhay miisaan looma hayo si wadistiisu munaasib weeye anaguna u yaraysan maayo gacanna waa uga baahanahay taana dareenkeeda waa muujinaya insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay wax weyn ku soo kordhiso tayada shaqada iyo shaqaaluhuba inay kobocdo gobolada bariga oo inta badan ka hadli jiray cabasho ah inay hooseyso aqoontuna ma aha wixii jaamacadaha lagu dhigtay maalin walba waa sida mobilkaasi softwareka ku jira inooga doonayeen la update gareeyo ayaa aqoontuna u baahan tahay caqliga bini'aadamku in la kobciyo si adeega adduunyadu maalinba halku maraya inuu la jaan qaadno waxaan oran lahaa
xafiiskiina uu idin joogaa sidii cabdi sheegay shaqaalaha halkan baa laga diiwaan gelinayaa waxaanu wadnaa system aanu kula soconayno shaqaalaha isduwayaasha iyo gobolada ilaa wasaaradaha inaan xafiiskayga ka ogaan karayo inta soo xaadirtay si aan uga saarno kuwa caadaystaa aan shaqada imanin oo waxa dhaqaalaha yar ee la soo ururiyay aynu cashuurta u soo ururino aanay noqonin inay dhiigbax ku noqoto qof aan soo shaqo tagayn waxba u qabanayn qaranka taana waxaanu ka wada shaqaynaa wasaaradda maaliyadda waxaanu isku dayaynaa inay isduwayaashana u tafaxaytaan in shaqada cashuurta waxa soo ururaya waa shaqaalaha iyo isduwayaasha iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha weeye waxaanu u tayanaynaa inay wax wanaagsan oo shaqo dadka laga soo ururiyo cashuurtii iyo in adeeg wanaagsan lagu qabto halkii loogu talagalay oo xalaala ay ku baxdo taana waa waxa loo tayanayo oo waxa system cusub loo keenayo oo waxaynu tadawirka iyo horumarka u sameynayno biidin la wayga dardaaran hagayaasha aanu siinay habraacyada sharciga 16kii waxay idin fududeynayaan shaqaaluhu sidoo shaqada ku soo galayay ilaa sidoo kaga baxayay ilaa hawlgabkiisii ilaa xaqsiintiisii iyagana ka faa'iideysta biidnillah waana idinku mahad celinayaa tababarka macallimiinta bixisay tababarka labaadna sabtoodu bilaamaya kuwii dawladaha hoose ku xiga kuwa kalena waa ku xigsiinaynaa taana waxaan jecelahay in waqtiga xogtan hayo waxa kamid ah isduwayaasha qaar inaanay tababarka si fiican uga soo wada qayb gelin waa kii waa trayer waayo the performance kan marka dambe hadana eegayna anagu maxay ku keentay tababarkii la bixiyay wax bay leedahay hay'adda shaqaaluhu la waaxda performance ka waaxda shaqa dabagelida shaqa qiimaynta waxaanu eegaynaa isduwayaasha cidii shaqada la tababarka la siiyay quality-ga maxadkaygana waa eegaynaa waa qiimaynaa tababarku bixiyay waxa kale oo eegaynaa tababarkii la bixiyay muxuu ku soo kordhiyay adeegii dadka loo baahnaa in la gaarsiiyo wanaagsan muxuu wax ka bedelay muxuu akhlaaqiyadkii qofka shaqaalaha ka bedelay si cashuur bixiyaha iyo shaqaaluhu ay saaxiib noqdaan taasina mas'uuliyad isduwayaasha saaran weyn hogaamintooda qaataan badin maayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay de aynu qaranka iyo caruurteena iyo mustaqbalkeena wada wanaajisano waa waajibina wada saaran weeye wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha iyo cid allaale ciddii gacan ka geysatay suurtagalnimada maanta loogu xafladaynayo daafurkii macadka shaqaalaha tababarka shaqaalaha run ahaantii dowladnimadu waa un jaajuurkaa la isdul saarayo maalinba waxbaa la qabanaya waxaanu ilaa shalayto galaba idinla joognay xalayna dad fara badan baanu la kulannay laakiin waxaanu ogaanay wax badan oo la qabtay inaan laga warhayn waxay la tahay deerto inaanu joogtayno socodka si aanu mar walba aanu usoo bandhigno waxqabadka dowladda horumarka dowladdana aanu badino xafiiskan maanta aynu halkan aynu xafladiisa ku haynaana inuu qayb weyn oo ballaaran inuu ka qaato sidii maxaan ku dhahday waxyaabahaas looga warheli lahaa dadkana loogu baraarujin lahaa nabad baynu haysanaa nabaddaas waa taa maanta aynu halkaa isugu nimi ee aynu maxaan ku dhahday isku wareysanayno tababarka ku qaadanayno mashaariicda ku furayno mashaariicda ku kormeerayno taasumaa ina anfacda shaqaalahana in la tayeeyo isna loo baahan yahay shaqaalaha dawladdu marka loo eego shaqaalaha shicibka wuu yar yahay 10 qof ee shaqeeyaba qof uma ka shaqaala dawladda laakiin waxay joogaan meel halbowle ah oo sagaalka kale shaqadooda aanay wanaagsanaan haddii halkaa qof ee dawladda u shaqeeya shaqadiisa ay xumaato waxaa loo baahan shaqaalaha in la tayeeyo in la tababaro waxay noo qaabilsan xilkaa inoo haya waxa weeye waa hay'adda waa komishanka shaqaalaha iyo macadka tababarka shaqaalaha ay intaa inoo haya waxaa nasiib wanaaga in labadiiba maanta ay noo soo dhawaadeen oo halkan inoogu yimaadeen marka maadaama ay noo soo dhawaadeen waxaynu u baahannahay inaynu ka faa'iidaysano oo wixii laga barto aanay noqon wax lagaga dhaqaaqo marka shahaada yar la qaato ee uu noqdo wixii laga barto wax lagu dhaqmo xafiiska lagaga dhaqmo ayaa loo baahan yahay inta kale tababarku uu ku indha furayaa oo keliya waxaa qof walba looga baahan yahay aqoontiisa isagu uu ziyaadsado oo uu ballaarsado uu kororsado aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaran wuxuu horumaraa shaqaalaha hormuudkii hagarli'i markay tacaa heganugu ahaadan hawshiyadanaha guud heganugu ahaadan hawshiyadanaha guud horjoogahoodow hawlkarkii wax qabadliyo eebadkan wax qabanay waa in ila kala hufaayo hal loo ogaadaa eebadkan wax qabanay waa in ila kala hufaayo hal